shirkan oo lagu qabtay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda dowladda Puntland ee magaalada Garowe ayaa ahaa mid looga tashanayay wax ka qabashada arrimaha abaaraha ee deegaanada Puntland ka jira. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda dowladda Puntland ayaa isugu yeedhay hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala gudaha Puntland si la iskula wadaago warbixino ku saabsan qorshaha gurmadka abaaraha laguna dabagalo shaqooyinka ay qabteen. inta uu socday shirka ayaa looga dooday sida wax looga qaban karo xaaladaha abaareed ee ka jira deegaanada Puntland iyo doorka hay'adaha kaga aadan arrimaha gurmadka loo sameynayo dadka iyo dunyada ay saameeyeen abaaruhu. dhinaca kalena hay'adaha shirkan looga yeeray ayaa soo jeediyay qorshaha uga degan arrimaha abaaraha iyo meelaha ay ka bilaabayaan shaqooyinka. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda dowladda Puntland Cabdiraxmaan Mire Xirsi oo furay shirkan ayaa ka warbixiyay ujeedada la isugu yeeray hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala Puntland oo looga tashanayay arrimaha abaaraha. waxaan maanta isugu nimi in aynu ka wada hadalno ayla dhaantii abaartii jeediyay ee ay jeediyeen dowladda Puntland oo uu gudoomiye u yahay madaxweynaha ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan. taas wixii ka soo baxay in aynu ka wada hadalno si dadkii loo gaarsiiyo si degdeg ah biyo dhaamis iyo caafimaad, daawada xoolaha, raashin iyo waxyaalaha quseeya ee emergency-ga ah. sida awgeed inagoo isku mid ah waxaan doonaynaa hay'adaha caalamiga ah in ay noo sheegaan wixii ay ku deeqeen iyo kuwa raba inay wax ku soo deeqaan iyo kuwa hadda ku deeqay iyo shaqada ay wadaan waxay hadda bilaabeen waxay rabaan inay bilaabaan iyo xilliyada ay bilaabayaan. arrimaha aan rabno in aan ka hadalno aynu ka wada hadalno waa arrimaha shirkuna waa inoo furan yahay. waa mahadsantihiin. Suweyska Cayte warbaahinta dowladda Garowe.